ugu yaraan waxaa dhintay 27 qof inta imika la ogyahay halkay dhaawac yihiin in ka badan 100 qof oo kale kadib markii dagaal culus uu magaalada Tripoli caasimadda waddanka Liibiya ku dhex maray kooxo hubeysan. dagaalka ayaa ka dhashay mid ka mid ah taliyayaasha ciidamada kooxaha dagaalamayay oo ay afduubteen kooxda kale, taas oo keentay in dagaalku noqdo midkii ugu adkaa ee ka dhaca magaalada Tripoli tan iyo bilowga sanadkan 2023. dagaalku socday saacado dhowr ah ayaa saameeyay dhammaan qaybaha kala gedisan ee magaalada Tripoli, iyadoo ay hakad galeen isku socodka dadweynaha iyo guud ahaan ganacsiga magaalada. shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay ka sii badnaan karto inta imika la ogyahay, ayna jiraan dhaawacyo halis oo ay ku jiraan dad shacab ah. qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Tripoli ee xarunta dalka Liibiya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in iyaguna ay galeen xaalad adag oo halis ah, inkastoo hadda dagaalku uu joogsaday kadib markii xorriyadiisa dib loogu soo celiyay taliyihii la afduubtay, taasina ay keentay in dagaalku uu istaago. waxaa warbixintan la socodsiinaya anigoo Maxamed Siciid Saxaaf. intaanu ku kulmayno warbixinteeda xigta meel walba dunida ka joogtaan haddii beedmo waxaanu kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.